aad iyo aad u maasantahay maxamed axmed cagta xaaji anigoo ah cabduqaadir cumar cabdulle kana mid ah wariyaasha telefishinka Universal sida gaarka uga shaqeeya magaalada Muqdisho waxaad la socotaa in magaalada Muqdisho ay tahay meesha ugu dhibaatooyinta badan marka loo eego dhibaatooyinka iyo tacdiyada loo geysto saxaafadda Soomaaliya waxaana jirtay in dilal fara badan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho haddii aan soo qaato tusaale ahaan 3 December sanadkii 2009 ay ahayd markii aan ku dhaawacmay qarax weyn oo ka dhacay hotelka Shamo ee magaalada Muqdisho xilli aan doonayay inaan usoo waramo shacabka Soomaaliyeed markaan aan usoo bandhigo bal xogta dhabta ah ee halkaas ka jirtay iyo waliba munaasabad halkaas ka dhaceysay nasiib wanaag hasaatay dhaawac yar ee iga soo gaaray inkastoo dad fara badan iyo saxafiyiin ay ka mid ahaayeen ee halkaas ku geeriyoodeen sidoo kale 7 bisha July ay ahayd ee sanadkii 2012 ee aynu ka soo gudubnay markii sida oo kale aan ku dhaawacmay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir xilligaas oo dhalinyaro ku hubeysan bastoolado runtii ay ugu soo weerareen halkaas iyadoo aan garanayn ujeedada la beegsanayo saacadee qayb ka ah ujeedooyinka iyo sababaha loo beegsado saxaafadda Soomaaliyeed ee dadka dhibaatooyinka loogu geysanayo xilli ay ka shaqeynayaan in shacabka Soomaaliyeed ay u soo bandhigaan waxyaabaha ay shacabka tabayaan haddii ay lahaayeen wararka iyo barnaamijyada iyo sidoo kale xogta hoose oo ay ku adkaan lahayd shacabka inay ogaadaan isla markaana in ay saxaafadda maadaama ay tahay afayeenka shacabka ay ka hadlaan dhibaatooyinka shacabka haysta iyo waliba waxyaabaha ay ka tuhmayaan maamul kasta oo jira sababaas ayaa ugu badan cagta xaaji sabab aan mana filayno mar walba in shacabkeena Soomaaliyeed ee aan u shaqeynayno ay dhibaatooyin nooga yimaadaan haddii aan lahaayeen dil iyo dhaawac iyo sidoo kale handadaad iyo wixii la mid ah marnaba ka filayno shacabka Soomaaliyeed maadaama iyagu aynu u shaqeynayno oo aan maalin iyo habeenba u taaganahay sidii aan waxa jira ugu soo bandhigi lahayn aad u maasantahay